السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام هويو دونتو أي حرمتا كلي حبيبة أي ساعة نسان وكنت المعبر ويناي حتى أنا waxaan joognaa garowe saaka waxaan ku soo booqanay meeshii nasiib darada meeshaan taal wuxuu yiri dartu markaa ka shaambuulka wada wadnaha istaago wiilkii dhammaa cid geysatay dhakhtar male wuxuu dhinacna laga hayaa waa dad aan ka yaabay waa aniga cidan waa iga yaabsadeen ana haddaan meeshaan imaan lahayn dood waa sii dheer afkeygaan furtay fahamtay hadda marka insha allah beri jimcayna naqatay galabta waxaan isku dayaaya dhakhtar in loo soo baxsho haddii ilaa yiraahdo raaja lama saarayo era combyuutar la saarayaa gaaridan oo rogmado daasad naqda ka waran nafta ku jirta u fiirinayaan jugtii hoosoo dhan looma jeedo marka insha allah khayr badan aan ku rajeynaa ilaa idinkiisa looga naxo ama wax aad looga xumaado oo qof walba ama hooyo walba ay dareemi karto maamadaas wiilkaas dhashay ama fanaankaas dhashay waqtigaas waxay ku sugan tahay ama dhibaatooyinka ay dareemayso ama waqtigaas waqti xaadirkaas dareenkeeda ama waxay nolosheeda waxyaabaha markaas marayso waxa dareemi karto qof hooye ama qof maama ay dareemi karto qof kale qof walba iskama dareemi karo laakiin maama ay dareemi karto dad dhashay ama ciyaal dhashay ama uwad fara badan dhashay ay dareemi karto marka wallahi arintan waa arin aad looga xumaado sida ay maamadu hadlayso waxay taagan tahay ilaa intaas aan ooynaayay ilaa intaasan dhibaatooyin fara badan baa la kulmay tiray wiilku iga xanuunsan yahay camal dhanka ilaa adiga jugta u qarsan ka badan ay tiri marka sida iyadu u hadlayso wallahi waana arin aad looga naxo waana arin aad looga xumaado in ay maamada dhan sidaas dhan ay heerkeedu gaaro ama ay sidaas dhan u hadasho waa wax la dhigi karo oo kusoo gudboonaada ama dhibaatooyin kusoo gudboonaada waaye laakiin dhimbal insha Allah wax walba laga baxaa ama wax waliba waxay leeyihiin waqti marka wax u qarsan ama jugta u qarsan baa ka badan wiilkayga ama fanaanka saa u taqaano waana sax sababtay taa qof bilaadan dhan oo gaari la godoomay ama gaari dhan la godoomay wax fudud maahan waa wax in ay ku soo gaaraan ama jug ay ku soo gaarayso waa xaqiiq boqolkiiba boqol sababtay tahay gaari dhan wax fudud maahan oo intaasoo qofood ay saarnaayeen ama intaasoo qof ay saarnaayeen oo kula godoomay inaad jug la-aan noqonayso oo haddana isla markii aad galayso xabsi isla markii xabsi gasho oo lagu daaweynin oo lagu daryeelayn wallaahi waxaa dareemi karo qofkii markaas dhibaatooyin noocaas la soo kulmay ama qof dhib noocaas arkay ayaa dareemi karo marka waxaan dhihi lahaa ani ahaantayda boqolkiiba boqol aad baa uga xumaaday ama aad baa uga naxay arrintaasi boqolkiiba boqol maamada waxaa ka dareemaysaa in ay dhibaataysan tahay ama in ay murugaysan tahay ka dareemaysaa ama sida hadalkeeda ka dareemi karto ama sida aad dareenkeeda ka arki karto ama hadalkeeda marka wallaahi waa arrin aad loogu xumaado boqolkiiba boqol sababtay tahay waa hooyo waa maamo marka wallaahi waxaan dhihi karnaa wiilkooda xabsi ku jiro oo haddana la kulmeen mar walba mar dhif la tusaayo mar walba nolosha iska tahay si waa siday kusoo kacayso ama siday ku jiifanayso waa arrin aad xaaladeeda aad u xun boqolkiiba boqol sababtay tahay wiilkaaga maanta wuxuu ku sugan yahay ama noloshuu ku sugan yahay aadan garan karin إن شاء الله حورجين دونا إن سفود وكسب حدونا من سفود حبس وكسب حدونا مركا فضلنا ده نوع سبتاني نقصب بيرو كمان نقول مناك كنا يوتيوب كنا كحران نكست فيديو يوحنا كلها هاي باي باي